kulan wacan saaxiibada aynu jecelnahay oo ku soo dhawaada qisadii jecel ee Mahad iyo Maandeeq qaybteedii 10aad balse intaan u gudan galin qisada fadlan muuqaalka like saar siina share garee qaybtii hore waxa inoo mareysay Maandeeq oo Mahad ugu timid hotelkii uu magaalada ka deganaa balse ay meeshaasi ka dhacday arin ay mahadinin Maandeeq xaalad aan la wada qiyaasi karin ayaa la wada galay Maandeeqna markii laabta la geliyay isla markaasna bushimaha loo saaray way is ilowday waxaana hawada ka tuuray jaceylkii xad dhaafka ahaa oo ay u qabtay Mahad iyo dareenkii lagu abuuray misana waxa habeenkaasi hawada ka tuuray jawiga oo ahaa mid qabooban oo roob yari uu heliyo romantikana aad ugu wanaagsan oo waliba dareen xambaarsan jirkana uu wax tabayo misana uu heliyo shaydaan wiilkii Mahad ahaa naftiisii uu xakameyn waayay xilli uu gabadhii dharka ka dhigay war uma hayo ciyaar aad u kulul ayaana ka dhacday goobtaasi habeenkaasi hool aan meesha loogu talagalin ayaa ka dhacday Maandeeqna gabarnimadeedii sidaasi ayay ku seegtay mar dambe bay is aragtay iyadoo la jabsaday sanduuqeedii ay sanado badan ilaashanaysay malaha waariyo ayay nafteeda ku maaweelinaysaa balse waxay aragtaa sheekadu in ay dhab tahay hadal iyo canaan ma jirta caawa balse cabsi aad u daran ayaa Maandeeq soo food saartay nafteeda ayaa waxa ay weydiinaysaa talow Mahad waxa uu ka yeeli doonaa arintaani caawa dhacday ileen talo farah ay ka baxday iyadoo ka duwan sidii hore ay caawa u soo hoytay gurigeeda balse caawa fikirkeedu waa uu ka duwan yahay sidii hore oo waxa ay ku fikiraysaa sidoo doona ha ahaada hadduu doono haba iska qiilee Mahad inuu ku guursado oo nolosha kula wadaago ma ogolaan doonaa talow sidee caadadu ahayd waxa qalbigeeda ku jira ninka wuu ku nacay mar hadduu jirkaagii ku raaxaystay wuxuuna ku malaynayaa in aad sidaani un tahay Maandeeq maanta ninkii ay hoos joogtaa waxay is leedahay ma laga yaabaa in uu fiiriyo wanaagii hore idinka dhaxeeyay ee aad u sameysay oo ma laga yaabaa in uu si sharaf leh ku guursado maalintii dambe ayay wacday wuxuuna u sheegay in uu ka laabtay magaaladii uu yimid balse markii hore uusan iyadu u sheegin maadaama uu si kadis ah ku baxay waa isbedel kale oo ay filaysay Maandeeq murugtii ayaa ku sii badatay mar walba waxa qalbigeeda ka guuxaya armuu ku yiraahdaa iga har ama u guursadaa gabar kale markuu magaaladii tagay muusan soo wicin maalintaasi oo dhan ayay sugaysay ilaa habeenkii maalintii dambe ayay iyadu wacday balse maxay kala kulantay la soco qaybta xigta hadduu Rabbi raali ka noqdo daawade haddii aad muuqaalka gabagabadiisa nala soo gaartay fadlan muuqaalka like inoo saar siina share garee